inagunba wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyay waxa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nabi maxamed mise caruur dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican u jawaabi doonto laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisoo dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo عجبا بالغدغي لكن ريالي هذا عقلي في عنكو اكتو ما هي قبطان عقبان لون نفيا تبتري اريا لا هذا لو برود دحقليه سو تمام انت اصلا نولش بني ادم ما كو كرديسا عاق هدي لا نفيا او دبتري لو برود لغا دخ سارو waxba kuma kordhiso laakiin waxa loogu talagalay in qaabkan leeyo fakarsiyo waxa la yidhi ninka kani caaga la neefeeyay labada birood ee dhexeeyo 40 milyan oo dollar ku qaata $40 million ayuu ku qaata waxa jira Western Europe dhalinyarada waxa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in baada intu ka yariyo qofka si loo hay karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si soo galin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968 kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar laba thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyay qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo caalamkan siyaasadani waxa ka bax caalamka la dadku leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadkan qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayo inuu wax ka sheego ama uu caabayo qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhisawa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad uu loo adeegsado ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameey jiray ma jirin nin yiraahdo kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kalihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wax uu qofka bini aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyay suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamadan yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan أسبوع دن دنيا دم أي تي في ده هرفر ده لا يدا كوب كي دنيا ده العيارة يا كوب كي دنيا محيي أسبوع كلام ده هرفر ده لا يدا كوب كي يوروبا العيارة يا دت كي يردن كوب باي داورة يا ويا هو مورال سلوس سمايا الله ربط دت كي النوع عنو قد ده هلا يا با أدوكم ما أنت هنا ده نيس ويدينين صبحي مركز سكول كسقط مع دم واحد الأذان حلا بدي ليجا كاس الرئية تضبط كان مانشستر يونايتد باوصل رئيسه iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa weeyaan iyada ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunida ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah
yaa tusaale kuwa oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad wakhti yar joogayso wakhtigaa yar aad joogtaana inuu yahay wakhti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waxaad og tahay in aad dhiman doonto